Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhowaada barnaamij aynu kaga hadli doonno sirta dahsoon ee suuqa bakaaraha. Suuqa bakaaraha wuxuu ka mid yahay suuqyada ugu waaweyn Soomaaliya, halkaas oo ay ku kala ganacsadaan dad ka kala yimaada dhammaan gobollada dalka iyo meelo ka baxsan dalka Soomaaliya. Suuqa waxa uu soo bilowday dhammaadkii sannadii 1950-meeyadii. Waxa uu ahaa goob ay isticmaalaan beeralayda si ay ugu kaydsadaan midhaha dalagyadooda sanadlaha ah. Sidaas ayuuna ku baxay magaca suuqa bakaaraha. Suuqa waxa uu si rasmi ah u taabagalay sannadii 1970-meeyadii, intii uu jiray nidaamkii militariga ee Maxamed Siyaad Barre. Xilligaas magaalada Muqdisho waxa ay lahayd suuq weyn sida suuqa Xamarweyne oo ahay midka ugu weyn oo dadka hantida leh ay ka adeegtaan. Sannadii 1983 waxaa dab weyn qabsaday suuqa Xamarweyne, taasi oo keentay in ganacsatadu u guuraan suuqyo kale sida suuq Bacaad iyo Bakaaraha. Sidoo kale, markii dagaaladii sokeeye ay ka dilaaceen magaalada Muqdisho, suuqa Xamarweyne wuxuu noqday goob colaadeed, taasi oo keentay gebi ahaanba suuqu inuu xirmo. Arrintaasina waxa ay mar kale fursad u noqotay suuqa bakaaraha. Burburkii suuqa Xamarweyne iyo dadkii oo ku qasbanaaday inay iskood u shaqaystaan waxa ay keentay in uu suuqa bakaaraha noqdo xarun ganacsi. Suuqa wuxuu ku bilowday degmada Howlwadaag, balse hadda waxa uu ku sii fidayaa degmooyinka Hodan, Wardhiigley, inkasta uu suuqa intiisa badani uu weli yahay degmada Howlwadaag. Waxaan rajaynayaa inaad macluumaad ka heshay sirta dahsoon ee suuqa bakaaraha. Qaybtii koowaad ee taxanaha suuqa bakaaraha halkaa ayaynu ku soo gabagabaynaa. Inta aynu ka kulmi doonno qaybteeda xigta, sidaa iyo nabadgelyo. Fadlan haddii aad ku cusub tahay janalka, subscribe saar, gambaleelkana taabo. Mahadsanid.